okay tusaalena waxa weeye fraction oo kajar ah ayadoo isku base ah iyo ayadoo kala base ah tan kama duwana ku darta sida looga shaqeynayo marka basekeedu isku mid yahay iyo marka basekeedu kala duwan yahay aan ku bilowno marka basekeedu isku mid yahay basekeedu markuu isku mid yahay oo ma baahnid wax inaad LCM la yiraahdo aad raadisid simple waxaad sameynaysaa basekaaga wuxuu yahay ayaad soo qaadanaysaa basekeenu waa 5 dhan kastaba halkan waa 5 halkan waa 5 soo hal 5 ayaan u baahnaa inaan soo qaadano 5 ayaan soo qaadanaynaa maadaama aan 5 soo qaadanay waxaan u baahannahay marka kor inaan aadno kor waxa weeye 9 waxaan leenahay 9 oo kan ah laga jaray 3 markay sidan tahay waan sii shaqeynaa waana kala jari karnaa xisaabteena waa xisaab caadi ah 9 marka laga jaro 3 waa 6 loo qaybiyay 5 taas waa halkaas anuna waan tusaalehna labaad b markuu basekeedu kala duwan yahay waxa loo baahan yahay inaad haysato inaad hesho meel basekaaga uu isugu yimaado oo sida kana uu kala isku mid ku noqon karo ama number labadan wada qaybsami kara okay numberka labadan wada qaybsami kara waa maxay waxaan ognahay labadan number inay isugu yimaadaan number badan laakiin waxa loo sii baahan yahay numberkooda ugu sii yar ayaa loo baahan yahay sidaa darteed waa 30 oo isiin karta 5 iyo 6 marka la isku dhufto waa 30 I know waana numberkooda ugu yar number badan oo u qaybsami kara jira laakiin 30 way ka badanayaan kooda ugu yar baa loo baahan yahay okay 30 waxaad u qaybsaa 5 waa 6 waxaad ku dhufataa 3 waa 18 laga jaray okay 30 waxaad u qaybsaa 6 waa 5 waxaad ku dhufataa 1 waa 5 markaan waanu ka sii shaqeyn karnaa because basekeenu waa hal mid oo ah 30 okay 18 laga jaray 5 waa 13 loo qaybiyay 30 waxaa jirta si kale aad ugu qaybin karto oo haddii aad u baahato kaaga sahlan maadaama labadan aad yihiin laba number oo kala duwan oo ayagu aan sii qaybsami karin macnihii aan factor lahayn waxaad samayn kartaa markuu yahay 3 qalin kale saddex waxaan samayn karnaa markay ahayd 3/5 minus 1/6 spacekaas anaa u baahan si kale ayaan rabaa inay tuso markay tahay waxaad samayn kartaa numberkan maadaama uu 5 yahay kana 6 yahay dhankan 6 ayaa kor iyo hoos ku dhufanaysa waxaan leenahay lagu dhuftay 6/6 halkan xaggan waxaan sameynaynaa numberkan ayaan ku dhufanaynaa oo waxaan leenahay lagu dhuftay 5/5 hadaba kan waxay la mid noqonaysaa 6 marka lagu 3 marka lagu dhufto 6 waa 18 over 5 marka lagu dhufto 6 na waa 30 laga jaray noo soo qaad 5 waxaa ku dhufataa 1 waa 5 waxaa ku dhufataa 6 waa 30 markan waxaan haysanaa laba denominator oo isku mid ah laba hooseeyo oo isku mid ah sidaa darteed waanu kala jaran karnaa waxaan leenahay 30 15 marka laga jaro 18 marka laga jaro 5 waa 13 qaabkana waa samayn kartaa ansarkaaga waa kana wuxuu la mid yahay kan labadaas si wada uga shaqeyn kartaa hadba kii kuu fudud